meelaha la aado saasuu yiri maxaa horaya isaga la aadno anaga baba soo qaadanayba way waxay waqtiga cibaadada iyo masaajidku joogaan ma banaan jirin baa jira waa gartay fiqi oo hadlay wuxuu yiri dastuurkii ha qaato faroole inta aqliga u saaxiibka ah hadalladooda inaad weydiisid baa sax ah dadka aan aqliga u saaxiibka ahayn aniga shakhsiyan wasiirka gaashaandhigga qaranka haduu asagu fahansan yahay inuu yahay hadallada kuma hadleen because hadalka uu yiri cay iyo wuxuu isugu jiray hadal Soomaali weyn isku diraya waxa weeye dastuurkaagii wad la joogtaa hadal yar ma aha nin wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya aan hadal isku laama waxaan oran karaa aqliga umba ku yaraa dadka Soomaaliyeed wadada isjecel dadka Muqdisho intay noo xanuunsadeen bay noogu yimaadeen hotelka anagu magaalada aanu ka deganayn qabiil ahaan ma la isugu qaayadiri karo annaga haddaan reer Puntland hayna ma qaadanayno in la fahansiiyo xerta maanta joogta in la fahansiiso qabiil ahaan dagaal ah baa jira ma yeelayno dalku waa isleeyahay waa Soomaaliya hal jiho baynu u soconaa jihadaasina waxa weeye xerta maanta joogta mandatekoodu wuu dhamaaday wayna ka soo baxayaan meesha ay ku jiraan doorashada dalka gelinayaan inta maangaabka ana u jawaabi mayno waa la soconayaa halka Soomaali muxuu yahay wallahi halka Soomaali waa in doorashada la aado waxa way lagana heshiiyo in maxaa la yiraahdaa ii sheegay dalkan doorashadiisu sanad walba aysan isjiidkan galin oo aan been la isu sheegin irgaar ay soo dhamaaday idinka golaha wakiilada Puntland iyo xildhibaanada ku metelay Puntland federaalka maxaa ka wada hadasheen kulanka nooga warbix waxaan ka wada hadalnay qaabkii loo wada shaqeyn lahaa oo labada barlamaan waxa golaha wakiilada Puntland iyo barlamaanka federaalka ku metelay xildhibaanadiisi qaabka loo wada shaqeyn lahaa ajendayaasha shaqada ee soo socota iyo hayaan socodkii geed socodka soo socday iyo is update gareyn iyo wixii dalka ka jiray maadaama aan cabaar maqnayn baynaga update gareynayeen inana wixii xagga aanu kala soo kulannay baanu ka update gareynayeen